warmaant saakeeto dad baa waxaa kusoo waabariistay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saake dad baa waxaa kusoo waabariistay mucjiso aad iyo aad u xun magaalada Göteborg ee dalka Sweden. Waxaa ka dhacday mucjiso aad iyo aad lala yaabay. Dad badanna ayay isbitaalka u jiifaan, weli dad badanna noqdeen guri la-aan, taas oo keentay wax loo maleynayo inuu yahay qarax mase ahayba qarax oo jirdilay xaafadda Anadol ee magaalada Göteborg dalka Sweden. Waxaana tusaysaa taas in ay adduunka wax walba dhici karaan, meel walbana ay dhici karto. Waxaa la dareemayay, dadkii ay dareemayeen iyo waxa aan dareemayno annaga ku nool magaalada Göteborg waxa waaye ilaahay naga qabto dhammaan inta muslim ee ku nool qaasatan magaalada Göteborg ee adduunka dacaladiisa meel walba ay joogaan. ilaahay naga qabto. laakiin waxay ahayd wax lala yaabay. saake 4 subaxnimo iyo 45 ayaan u maleynayaa ayaa waxaa dhacday gariir guryo ijaar loogu jiro, guryaha saraha dheerka ka mid ah ee Anadol ayaa waxaa la dhigay wax aan loo maleynaya inuu ahaa qarax mucjisa oo adaba gelgelay guriga. sidaas daraaddeeda dhammaan waxaan u sheegaya dadweynaha in la taxadirnaado oo la fiirsado waxyaalaha qaarkooda ee keeni karo. waa in la bilaabaa. wuuna hadlay Stefan Löfven, wuxuu dhahayna waad ogtihiin, waan ka xunna u dhahay, waan ka xunnahay. annagana haddaan nahay hoyga habeenka waan ka xunnahay in ay magaaladeena waxaasoo kaleeto ka dhacaan. saas awgeed waxaan ii sheegayaa taxadira, ilaahay garbihiina ha taagnaadee. Soomaaliya isku duubnaada, dadkaygiiyow isku duubnaada, reer Göteborg isku duubnaada. wax walbana way dhici karaan, waqti walbo iyo qadar Allah ayay u dhacaan. laakiin tan oo kaleeto weli way dhimneed. anigoo Axmed Bilib waxaan leeyahay aad iyo aad ayaan ugu xunnahay wixii dhacay saakeeto lagu waabariistay xaafadda Anadol ee magaalada Göteborg.